sheekh cabdixaq oo dadka qaarkoodna u yaqaanaan sheekh Rusheeye oo dadka ku dabayba quraanka ayaa soo gaadhay magaalada Burco waxaan wax ka weydiinay qaabka uu dabiiba dadka iyo sidoo kale su'aalo badan oo ay bulshadu iska weydiiso sheekhani ugu horeyntii waxaan wax ka weydiinay muddada uu joogi doono magaalada Burco waxaanu kaga jawaabay waxaan si gaar ah uga mahadnaqaynaa gabadha asal soo boqday xarunta ay ku taalo xarunta ku meel gaarka ilaajka ee Burco marka maadaama aan horey fursad ugu soo helnay markaanimi shalay iyo daraad iyo maxaan ku saddex cishaan shaqeynay ilaa sabtidii umad badan baa Ilaahay shaafiyay sida hadda kaamirooyinka ay qabanayaan ablaha halka dhooban dhamaan waa laga dhawaaqaya waa dadkii xanuunstay halkaan ka soo saarnay talagalay 10 cisho imikana 6 cisho ay hartay waxaan ka sameyn doonaa xarun weyn oo aan ugu gargaaro walaalaha muslimiinta maxaa yeelay hal magaalo ayaa intaas oo qofood hal maalin ka xanuunsatay waqtiyaanu kala sameynay مثلا dumarka 9 kan soo saarnaa raggana waxaan ugu talagalnay 10 galabnimo ama 4 galabnimo ayaan ugu talagalnay dumarkana 9 kan ugu talagalnay ilaa iyo duhurkii insha Allah taala xaqiiqatan dadku way garanayaan anigu waxaan u sameeyay ambulance u gaara oo ambulance u gaara ama qofka dhacay lagu soo qaado markii lambar laga soo waco qofka xanuunsan gurigiisa ku booqanaa sida nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u booqan jiray waana shaqadayda iyo dhaqankayga weeyaan ilaahay baan arrinta ayada maartay uga mahadnaqaya meelo badan waan gaari doonaa kamid ah Soomaaliland oo aan ognahay dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan oo dadka ay leeyihiin cudurradan sixirka ee maanta faafay ummadana waan uga degaynaa maartay inay dadaalaan oo ilaahay isku xiran insha Allah sheekh cabdixaq inta badan culimada qaarkood waxa ay kugu dhaliilaan inaad ku rushayso dadka biyo arrinkaasi maxaad kaga jawaabaysaa qatan zaman waxaan soo marnay dadku aanay dhakhtarna aadi jirin inta biyo la soo qaado weel lagu soo qaado loo iman jiray ardayda iyo macalinka qof xanuunsan ayaa loo soo qaadi jiray biyaha dadna macalinkeena iyo ardaydana waxay ku tufi jireen quraan qofka xanuunsan baa dib loogu celin jiray waana la waraabin jiray waana lagu shubi jiray ilaahayna caafimaad buu siin jiray xaqiiqatan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu tufay biyaha ayl ayuu maartay ka soo daray wadaan wiil yar oo shintiro saxaabada kamid ah ayuu ku tufay ashar ninkaas saxaabiga hadlaya uu cabsiyay uu ku shubay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilmihii uu dhalay rugada ugu tufayna nabiga sallallahu alayhi wasallam bal intuu cantuugay ayuu ku sayriyay soo afkiisa ay ku jirta ayuu maartay ku sayriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam taana horaan u aragnay bal iyagoo dagaalka ka duulayo ayay nimanka culimada qaar kamid ah oo dadku ay wada garanayaan waa nimanka bixiyay weeyaan magaca Rusheeye waa macnaheedu ay tahay dadka biyaha ku saydha ninka sidaa leh aabihiina 10 baa loo tufi jiray isaga 10 buu ku soo barbaaray loo tufi jiray maanta bidcay noqotay waxaan maanta bilaabayna ma aha 10 baan kordhiyay cagada waaweyn baan ku shubay quraankii baan ku tufay marka waxaan leeyahay ninka sidaa yiri uma jeedo maartay macna kale waa cabdixaq buu socdaa cabdixaqna fadliga Ilaahay baa siiyay cid ka qaadi kartana ma laha midan aan hadda buufinay mishiinka lagu talagalay in gawaarida lagu meeydho samsam baan ku shubnay iyo quraankii oo dhameystiran oo 114 ku tufnay dadna samsam baan ku darnay waka umada aan ku shubayno markaan u soo noqdo su'aasha asalkeeda waxaan leeyahay arrinta ayada ah Rusheeye ay maartay ka wadeen biyo dadka ku saydhiya anigu waxaan ay nin magacaas ku qanacay maadaama ay dagaal ka wadeen anigu waxaan ay 10 dadka ku Rusheeye magaca ay bixiyeen yiraahdo waa sheekh Rusheeyna aad baan ugu qanacsanay culimada qaarkood ayaa waxay kugu eedeeyaan in quraanka aad ku tuftid mikrofonka cabdixaq ahaan qaab noocee ah ayaa dadka quraanka ugu tuftaa waayahay taasi waa nin aan garanay hadalkiisi ilaahay dambigiisa ha dhaafo waxa weeyaan xaqiiqatan mikrofonkan dadka marka lagu tufayo sameecada ay ka soo baxayaan marka la yiraahdo inta hawa marayso inama al-a'malu bin-niyyat inta soo muslim ilaahay gaarsiinaya bal dhawaaqi shaydaanka tufti sameecada ay madaafiic ka soo dhacaysa dadna shaydaanka bay ku dhacaysa marka mikrofonkana waa ku tufnaa halkaana waa ka sayrina marka waxaan isleeyahay walaalkay arrinkaasi jaahil buu ka laakiin ana hadda u cadeynay insha Allah maxamed saciid gaxnug telefishinka caalamiga ee badda cas magaalada Burco.